waxaa magaalada Karlsruhe ee dalkani Jarmalka lagu qabtay kulan ballaaran oo loogu dabaaldegayay ciidii Carafo ee ina dhaaftay. kulankaasi oo ay soo qabanqaabiyeen ururka midnimada Soomaaliyeed oo iyaga xaruntoodu ay tahay magaalada Karlsruhe ayaa waxaa ka soo qayb galay bulsho fara badan oo Soomaaliya oo iyagu ka soo kala kicitimay gobolada kala gedisan ee dalkani Jarmalka, kuwaasi oo shucuurtooda ku muujinayay sida ugu faraxsan yihiin in Soomaalidu ay isugu timaado meel si ay u soo xasuustaan ciidihii ay ku ciidi jireen dalkoodii hooyo. ururka midnimada Soomaaliyeed ayaa halkaasi ku soo dhaweeyay bulshadii Soomaalida ee ka soo qayb galay, waxaana khudbado ka jeediyay gudoomiyaha ku-xigeenka iyo waliba marti sharaf kale, kuwaasi oo ka hadlayay muhiimadda ay u leedahay bulshada ku adkaanta diinta Islaamka iyo waliba dhaqankooda suuban. runtii aan maanta aan halkan ku ciidayno dhammaan reer Karlsruhe gaar ahaan Axmed Binaash iyo Faysal oo qayb weyn ka geystay, iyo waxaan kala gaaraan ugu mahadcelinayaa dumarkii ka qayb qaatay aan hal u sheegi karin dhinaca maanta cuntadii macaaneed halkan aan ku cunnay waan idinkaga wada mahadcelinayaa. marka haddaan u gudbo dhanka ururkan runtii waa taqaanaan waa urur Soomaali oo ka shaqeeya midnimada. ururkeena wuxuu jiray ilaa iyo 1990kii, waa 23 sano ayaan filayaa. ururka intuu jirayna wuxuu ka shaqeynayay waa midnimadana runtii waa waxa kaliya lagu amaano reer Karlsruhe sida ay ugu shaqeeyaan midnimada Soomaaliyeed. Soomaaliya maanta wax kastoo ka dhaco, dhibaato kastoo ka dhacda, qabiil kasta si kastoo la isku hayo isku midaba isku luqada oo wada ehna inteena meesha caawa isugu tihiin laba aan qaraabo ahayn kuma jirto, kuma laga helaa ma jirto caalamka. nimcada Ilaahayna siiyay inuu ku shukrino oo ku xamdino oo aynu garanno oo sida Ilaahay noo siiyay uga faa'iideysano oo wax lama hubo. Bismillahir Rahmanir Rahim. dhammaantiin waa wada salaamintiin sida sharafta leh aad soo qayb gasheen maanta ciidaaneed. ma sha Allah reer Karlsruhe waa ku ammaanantihiin dhammaantiin. waxaan leeyahay aad iyo aad ayaa ugu mahadsantihiin. waxa kaloo rabaa inaan caawo waxyar halkan ka sheego, maadaama dhalinyaro badan ee halkan abuuda joogtiin, annaga waxaan nahay bahda isboortiga. isboortigu waa waxa kaliya ay dhalinyaradu isku fahmi karaan. ururka midnimada Soomaaliyeed ee xaruntoodu ay tahay magaalada Karlsruhe ayaa ah urur runtii ka duwan jaaliyadaha kale ee ku yaala ka jira qaaradan Yurub, kuwaasi oo ku salaysan deegaano amaba qabaa'il, waxaana ay indhahaagu qabanayaan iyadoo ay joogaan dhammaanba bulshada Soomaalida, kuwaasi oo u midoobay sidii ay isaga kaashan lahaayeen caqabadaha ka waaweyn. Mustafa Xajaadan Haarun, telefishinka caalamiga Cable TV, wararka Yurub.